hargeysa leh ma been bay sheegtay haddii inay hargeysa iyadu leedahay waarunteed ma been baa sadar ma hadal bay noqdaa dee waa waxaan caawa qalbadu la wada jabtay ganacsiskii qolol usoo wada furteen hargeysa daadariina markii bay ku kolkaad eegtaba caawa horta midda labaad su'aal baan anu qabaa odaygaa loo jawaabay ma reerkan baa maxaa reerkan xiji xil bay haystaan madaxtooyadii bay fadhiyaan 30 sano soo rafaadayeen ilaahay baa uga naxiyay halka mar miska xajistaan lambarkooda si shibta iska galaan waliba may fuulaan anaga saarnay meesha waliba may fuulaan suweer walba saarnay meesha wala tanaasulay ha wadiga arkaysa odaygani waa ka raacay anigayga suweer boqolaal qof baa raacay tijaarteeni baa raacday waxaan noo saamay ciyaar ku fuulaan inaga saarnay kursiga xataa bal inay qadeeyaan markay naga day waayeen maalintii hadday muuse reerkiisoo dhani raaci lahaayeen oo waxaan ku uri raaci lahaayeen salaadiintiisu ay raaci lahaayeen maalqabeennadiisu wallahi inaan laga kiciya 30 sano dambe xataa lugaha loo qabtay laakiin ma aaminsanadii kaale ka dhacay ما شاء الله ما الحمد لله رب العالمين وياي dadkan de ma garanay meesha soo wada qabsaday marsuuna baan arkay ugu qorantay boqorada Saacad Muuse magtana soo qabo qaaraan magacyada ugu qornay deeniyoon ma kala qaano dadka السلام عليكم بهضيدا واني سلامي وكا قادي ولا سو دو waxadii way dibada way walaale waa boqorada waxadii ay maay Francisca may hoos u dhaadhahay Saacad Muuse Ciise Muuse ميمي حسين بكر وسعد موسى حسين سعد موسى ugu qoran yahay حسين بكر waayahay inantaasi maxay u qalantaa sharaf iyo karaamo geesiyadeeda xildhibaannimadeeda suweer walow dhan waa inay miiska saaraan waa siday tahay waan ugu horeeyaa cadaaladeeda ka waran intii adeerkeed xasan dhulka ka taagtay markuu waxba qaban waayay sabaysa saartay ay sabaysana soo saarto nin Cabdilla Saacada iyo ku xigeenkiisa iyo Ciise Muuse iyo inankii uu saldanada ka boobay oo ay umaamadii siisay reerkoodina bahashi may dhaafin deetii suweeriyadeed guud cadaaladeeda inta ka waran horta sabaysa waan raacsanayaan walaalo waa geesi ma garanaysa sidaa kalena dee kolley talku rag buu leeyahay rag baa ka fadhiisan arrimaha kalena فريد وصحورة هذه قرار بدن باين أنت اللي قفرت ما داعي ما قاضي مدينتي ما قاضي يعني السلطان حسن بير قاركود waxaan ku taageersiino inagu aha se taladu inaga inoo taalamant ma fahanti waxa naga naga go'aa un baa waxaan ku iri waxaan ku meel marin si fiican loo markay isku duubnida iyada wax ka wanaagsan ma jiro وتا إنكي على مساري مادرك عاين وتا هالكي تبص كله قفة على مسارتي ونك سالوري كرسي ساعد مسنت لكاين وناركي odagii Suldaan sabaysa waxa la yidhi oo dhageyso Suldaan Cabdilla Saacad oo watay laakiin qaacida geeshka reerka uu arrin inankan uu iska afgaabay moogtay inankan culimada noo sibaa la yidhi talada reer kale loogo laakiin reerka hogaanka weyn ninka Ciise Muuse qabiile iyo isaga loo dhaariyay صح waa guul iyo gabanimo ma kul aanu waxaan jecelahay inaan isku duubnaano waa muhiim ma aragtay inaan isku duubnaano waa muhiim kala farfaaqana inaan iska dayno waa muhiim intaanu tolkay ku ma aragtay aan ku bogaadinaya waxa weeyaan isku duubnideena ayeen wax ku qabsan karnaa way boqorada su'aasha u dambaysa inta uu Iraan caayade meesha fariistay uu xasano bari hore la eriyay iyo ina geeshkii de lagu garaacay ninkan sabaysa iyo balaayadan intay soo riixayaan si ay suweer wal u baabiyaan ma haboontay maanta cirro inuu toos ula tashado uu yeero Suldaan sabaysa oo talada reerka wax weydiiyo absolutely anagu waxaan ku sabaysteen lala tashado waa muhiim qarankana ma necbin se waxaanu anagu doonayno waa inay
taayadu hay meel marto waxyaalo badanna waanu tirsanaa waxyaalahaasina inuu wax ka qaban karo ayaan rajeynaya insha allah suldaan sabayste iyo intaha xilka loo dhaariyay insha allah khayr ma ku leeyahay walaalday anuu qulba joog baan ahay kulli korkaas wax kala socdaay aad baad u mahadsantahay balad waxaan soo qabtay abtiyaashkeena waa soo qabtay nin baa yidhi waanu wadanaa buu yidhi muxuu ahaa goosha anagoo ciise muuse maasha allah waxaan siinayaa maxamed kadibna waxaan siin doonaa qofka u dambeeya soo qabtay maxamed soo dhawo adigu de xageed sabafalo waa ku salaamay ma garad waa kaa qaaday war waa nin hambalyo idiin waday suwariyadii maahe suwariyadu waa reeyayday soo dhawo d5 ya oo d5 waa idin hambalyeynaya ma garad ya fariid dalay waa loo baahnaa idinka wala yaa idinka maarmaba gobbaadkiin waad jecelahay soo dhawaada anigu ma nin garxaskan iyo abar jecelahay waxaan wada xanuunka qabay cudurada qabay anigu Soomaaliya oo dhammaan jecelahay soo dhawo ilaadan diibaha bidday de gooshan ogaadaan leeyahay gooshu waa halyeeyad weeye caadi maaha laakiin yusraarti de waa taqaanada ahdi male way wada ooyayaan inta saacawa shaashadooda iyo dad saarnay caayaan maxaad halka ka dareen niman tamba malehe niman tambale nimankii 7 sano qaylinayay ma bilba xamil laayin waxay maanta idii aamusaano idila camiraano bagarasa idii jaabeeyaalo idii soo dhaweeyaa baahan waxay soo ridee saadalka waa kuwa xukumi karaane ya wariyaha suwariyadu waa dawlad wallahi ayayday ciyaar baaha rubaa ku sheegaya wallahi waa dawlad weey ya hargeysa inay iska leeyihiin bay cadeeyeen maanta mulkiilayaasha waa ismuujiyeen adiga waa khatar baashiibe baashi waxaa ka baqayaa odayaasha inaad ka ciidaysaane odayaasha ma yardaaya ayaa ma qadeeyay waxaad moodaa inay yar gaajoolayaan ya bal maya madaxtooyadii baabay haystaane maxaa saldanada ayaga iyo arrimahayaga gudaha maxaa soo geliyay inay dad aanu beri hore erinin ugu garaacaan gudaha iyagii inay ka xabadaritaan inay dad ay soo dhiseen ay lacag soo siiyeen wataan miyay damiir lahayn bal siyaasadda halkay ka bilaabayaan de waxa inay galaanba ma ahayn saldanada la galaa waxyaalaha waxay ahayd inay hadday arkaan xitaa cid wada waxay inay yiraahdaan u kaadiya dib u dhiga buuqa nagu furina waqti ay buuq furahan oo farafareeyaan saldanadii te meesha maba olba ya nimanku siyaasadda xuba kama faahsanadee ya inantaa fariida oo kunnin u dhiganta ayaa dhulka kaga jartay maanta dhulkay kaga goysay war inantaas hadday mikrofoonka kuu qabsato ya boord bay kaaga duulinaysaa ciyaar maaha telefoonkeeda hadduu hayacaa waxaan oran lahaa wallaahi oo bilaahi qolkayga soo qabso alla inaad ayaa telefoonkeeda haya inanta ayaa garaacaya inaan caawa soo qabta baabulaa iyo aan wax alla wixii garxajiskii iyo balaayadii dhulka ka wada taagay inaan iyo wax laakiin waa xilli dambe way hurdaa xilliga war sama fale laandheere baan kuri laandheere dadku de waa qabaa'il marna waa qadiyad bagarad saami baa yidhi anaa haya saami ow balluuqa maad igu soo diri saami honest qofkii igu qorantay sama fale waxaan ku yidhi dadku waana dee qabaa'ilo waana mabda'na waa wataan waana qabaa'ilkaaga waa tahay reerkaaga waa tahay bagarad ya warde maxamed mid baan ku hayaa anigu mooyi bishii January iyo waadiga ogaa sanadkan cusub iyo February saddex bilood anaa saarnaa muxuu ahaa baraha bulshada reerkaygiiyo waxaan arkay sama falow liban alcadaalaba waa ka yimid macaalanka buluugaadoo sita kaalay wallaahi haddaan ka dego wallaahi liban alcadaala xayaat alkalbi buu ku nooriyey daantooda dibluuq buu maxbuus ku yahay anigu saasaan u laandheeraynaya anoo calanka buluugaas reerkan la iskuma taataabto lacag iyo magaalooyin wax de meesha laga qabanayay iyaga ala wadankan be ha dawaanu aragnay Soomaa daawul reerka waa la yaqaanay assalaamu calaykum reerku waa isbuujiye waad salaamaya way idaay ka badan ma santay gobonimo oo kuwaan markii diifasnay inoo soo habariyay khair Allah ku barakeeyo gob way bar soo dhawo wiilkan ninkan Ciise Muuse waa inan soo dhawo والسلام عليكم السلام يا عيسى موسى كتاي waxaan ka haysan daladii dhashii cali jaamac haabiil haye bal magacaaw markaa magacooda sheeg la waan kula garaynaa maqlaysaa haye bal magacooda sheeg dhashii cali jaamac haabiil baan ku wari de haye cid walba way
maqashay siidkii waa laga maqlay maya adigu nin waxa tahay Saacad Muuse miyaanad garanayn cali jaamac habil cidoha anigaba waa kan anigu waan garanaynaa cali jaamac habil aniga dhalay reerkayga dhalay hooyadii waa reerkayga adigu bal yuu ka ahaa Ciise Muuse markaa ilaa cid garxajisa iska soo fulay iska sheegan kare reer waxaas buu ka ahaa walaal anigu qabiilkayga ma فريد سو دو غير وعيس ولا قريه اللي ولا بو قريه علي رئيس هال باي دلي سو دو ان هذا قبيلكيga قبيلك وان بانا با ووغي ما وان ku eegayo raalaha waa aniga waan garanaya reer wacaysan oo aniga sahal bay dhalay soo dhawo sahal ali ba ku dhalay sahal ha ina tan maxaad ka aaminsantay inantan waa walaashay horta waa dhiigeygii waa laxmad haye waa soo dadkaygiiga yaraaya Saacad Muuse Saacad yare haye وانا قرب تاغنahay يا ويلك بان له عيد u soo dhawaata ma garata laakiin nidaamnimada ma isleeday ila berbere ila meel walba uu ka soo go'aya inaad berbere iska daayo ila bixin baan geynayna sandaladayadii oo nagu soo codaynayna taas waa biyo kama dhibcaan Allah yacisik maqla Saacad Muuse waxaanu geynayna ila tacarbudu qulaalays sheekh berbere waxaan ku ri abkay awal bari ayaan ka soo codaynayna ma garatay miiskay u saaran tahay si toos ah Allahu akbar ma sha Allah tabarakallah gabadhana ana la barkeed hayo la xiriiro waan hayaa ma garatay Allahu akbar di uu luqad igu soo dhigi halkan ma doonayay in shaashada barkeed laga arkay ma baan ka soo qaadanaya hadii tiraasi waan ku siinayaa ma garatay idan la'aan ma bixiyo lambarada ma ogtahay boqortooyada laakiin adiga mid baan ku oranayaa ninka dhigaaga ah ee maanta oo dhan ku socday ee Baabullaahi la idhaa ee dhigaaga ah waa inaad ku socotaa inaad ma garata ma waaye ma credit baan u sameeyaa waa sakhraane sakhraanka waxba inagama gelin creditna ha u sameynay laakiin taad halkaas soo saarto waxaad ku tidhaa iyada ka ragmo badan ma garata soo ma ogid waliba Maxamed Ciise dhalay war wax dhalayna ma jirtay oon fadhadii buu ka soo harayo meelahaas islaantu ku korisay nama sheegto anagoo qolkan fuushanay ma soo fuudhaba waa oon fadhadii wax la koriyay weeyaan waxa soo kale inaad ma dhalo ma garata hayso soo cadeeyo anigu bir hore meeg la qaaton ku ri hooyada ay keen way keeni waay haday Maxamed Ciise dhalay dhabta inaga Maxamed Ciise mu noo keeno marka inantani boqolle iyaga israartibay way dhaantaa naga ablaha iyaga subeer awal waa boqollayaal ma garatay inaad idinkuna laba boqollayaal baad tihiin ma garatay